macluumaadada iyo wararkii ka imaanaya kana soo baxay dagaalkii iyo iskorimaadkii aadka u darnaa ee dhex maray dalalka Pakistan iyo Hindiya iyo waxyaalihii qarsoon ee Hindiya ay kala kulantay dagaalka waxaan kaloo ku fiiri doonaa saameynta ay ku yeelatay dalka Faransiiska diyaaradihiisii la daadiyay iyo sidoo kale hadday noqoto dhinaca difaaca ee wararka faa'iidada dalka Shiinuhu ka gaaray sidoo kale dagaalka ayaa qayb ka noqon doona iyo xaaladda guud ee labada dal iyo sida ay markaasi shacabka laftiisa u saameysay barnaamijka waxaa kala qayb qaadanaya wariyaheena arrimaha Aasiya iyo qaadadhiga markamida dadka kamid ah qaadadhigayaasheena cusub dagaal iyo iska hormaado aad u waaweyn ayaa dhex maray labada dal ee Pakistan iyo Hindiya maxay labada dal uga dhignayd maadaama aad goonaad Koonfurta Asia marka aad ku sugnayd oo aad goobjoog u ahayd inta badan meelihii ay ka dhacayeen dhibaatooyinka bal waxaad diiradda saartaa wararka arrintaasi ka dhashay gaar ahaan waxaad ka horeysaa bal Pakistan maxay arrintan intii dagaalku socday ay ku muujisay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أديك يا دمان دعوة ياشا channel كهرفدي ميديا يوربين تهرفدي ميديا أيامها أدوكم بدل بطل تبعدا وحسوا عصبون هذا خلاف الدحية لبضع ودن يكون بيسنوك النوكليير كوا هندية باكستان أيضا وخلاف كاسو كذا شيء سيد اللي ودوق يهدد الحسيالة وبدن كود كسر شيء هندية هل كلا شيء هل مواد إنه كسر شيء ودك النبال هو سو جبهة ay taageerto Pakistan waa sida Hindiya hadalka ay u dhigaysaa ay ku eedeysay wax gaarsiiyeen gobolka Kashmir dhanka Hindiya maamusho dabcan markii halkaas xaaladdu mareysay dawladda Hindiya iyo xukuumadda hadda joogta oo ra'iisul wasaare Narendra Modi hogaamiyo waxay ku cadaadiyeen xubnaha mucaaradku inay jawaab ka bixiso jawaab la garan kara ka bixiso ayadoo Hindiya ay halkaas isku dayday inay jawaab buuxda ka bixiso oo isku daydo inay waxa kale ay sheegeen cadaadiso qoliyahan Pakistan باكستان waxay muujisay waxa kale sheegay nidaam difaac oo aad iyo aad u adag Hindiyana ay sameeyay ka filaneyn kaasoo la leeyahay waxa baritaarayay ama waxa kale sheegay caawimaad buuxda ka helayay wadanka China oo China ayaa wadanka caawinayay dabcan Pakistan waxay kala kulantay halkan iyo wixii Hindiya kala kulantay laba ay kala ahaayeen Pakistan waxay kala kulantay halkan waa in nidaam difaaceedka China la isku halayn karo tayo uu leeyahay hubka reer galbeedka oo dhan uu ka waabin karo halka Hindiya ay dib uga gorfaynayso ay dib uga tashanayso soo daldalashada hubka reer galbeedka maadaama ay tahay wadanka labaad ee ugu hub iibsiga badan tan iyo 2020kii kadib Ukraine oo ayadu dagaalo aad u fara badan ku jirta waxaa jira in dawladda Pakistan sidoo kale ay muujisay inay yani soo riday diyaarado aad u tiro badan sidee ay ku soo gashay arrintaasi waxa kale ee sheegay hortan shirkada waxaa jira drones oo badan oo China leeyahay oo Hindiya Pakistan ka iibiyay ama wadanka China ka diiwaan gashanaadeen drones kuwaasoo drones tawsiiyay inay teknoolojiyadeeda wax ka bedeli karaan oo buuxin karaan nidaam system ayagu ay leeyihiin la iman karaan oo systemka ay kordhin karaan qaab la garan karo ama qaabishan la garan karo ay ku dari karaan waxa kan la yiraahdo ay sheegeen dabcan waxa la markaa la oran karaa Pakistan waxay hormarisay nidaamkeeda ciidamada cirka iyadoo isticmaalaysa diyaaradaha G10 ee ay soo saaraan shirkadaha China ee drones sidan wararka aan ku tabinay maalmihii ugu dambeeyay akhyaarteena aad ku socotaan aad la socotaan waxaa jirtay in dowladda Pakistan sidoo kale lagu ammaanay hanaanka dhinaca markay noqoto xogaha hordhaca ee helaysay ka hor intaan diyaaradaha dalka Hindiya aysan soo kici timin isla markaana aysan samaynin duqeyn iyo bartilmaameedsi gudaha wadanka Pakistan taasi waxay wadada u xaadhay oo runtii ay sidoo kalena lagu ammaanay hanaanka dhinaca warwareynta iyo kor u qaadista xogaha oo iyaguna door muhiim ah ka ciyaaray sidee looga dareemay gudaha wadanka Hindiya marka ay noqoto hadaba saameynta ay Pakistan yeelatay ama se maxay Hindidu markii hore ay filayeen marka laga hadlayo weerarka iyagu ay qaadeen islahaayeen waad kaga buso doontaan Pakistan bal arrintaas iskortag qodobkaas horta laba qodob buu noqonayaa waxa kale la sheegay Pakistan ayadu markii hore xogahan say ku heshay iyo weerarkanba maalinka dagaal ku dhacay laba maalmood ka hor bay xataa sii sheegtay qaabka weerarka Hindiya ay damacsan tahay ayada oo la leeyahay waxa isgarabsanayay nidaamka dad sameeyga nidaamka ibn aadanka iyo nidaamka tiknoolajiyada ee Hindiya isticmaalaysay ayadoo isla sidaas oo kale raadaarkadii Hindiya qaybtood ay u dhacday oo diyaaradahan Rafael markay duqeynayeen oo soo kacayeenba ay la socotay sida ay soo bandhigtay wasiirka warfaafinta Pakistan oo soo bandhigay ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda iyo meesha ay marayaanba
waxa kale sheeg taas waxaa la oran karaa soo daadinteeda waxa ka qayb qaadatay nidaamka sirdoonka ee Pakistan oo ah sida aynu wada ognahayba kuwa sirdoonada ugu caalamisan adduunka ee imika jira sidoo kale Hindiya gudaheeda haddaan soo noqono saameyn aad iyo aad u togan bay ku yeelatay waxa kale sheegeen oo inay ka fiirsasho aad moodo inay isku cadaadinayaan warbaaxintooda gudaha oo kale hubka laga soo konton reer galbeedka waxa kale sheeg sida reer galbeedku saaxiib u leeyahay arrimahaas oo dhan laga fiirsado ayadoo Hindiya hadda garwaaqsatay inaysan weerar labaad qaadi karin oo sida ay sheegtay xabad joojinta habeenka dhaweyto waxa kale sheegeen Pakistan baa jibisay sida hadalka u dhigayeen warbaaxintooda gudaha laakiin Hindiya dabcan fagaarahaas iyo loolankaas hawada sare way ku ceebowday kumana laaban karto waxa kale sheegeen dagaal imika soo habeyn labaad oo diyaarsan ma ahe imika dagaal labaad oo ay ku laabataa ma jiro waa sida hadda ay fafaalaha muuqda yahay haddii aan waxyaabo biyaha hoostooda la iska eegayo qorshayaal kale aysan jirin taasoo ah inay Hindiya aysan hadda boqolkiiba 80 isku bahalayn karin hubkii ay ka soo gadatay reer galbeed iyadoo xataa diyaaradihii Mareykanka ay ka keensatay qayb la yiri maba kicin kartaanba halka Pakistan wixii ay Shiinaha ka soo gadatay ay toos u isticmaalayso iyadoo isla Shiinihii u garab basiinay waa tahay maxaa uga dhiga waxyaalaha warbaahinta reer galbeedka aad ay u tabinayeen waxaa weeye diyaaradaha Rafale ee dalka Faransiiska oo runtii kamid ah diyaaradaha uu Faransiisku doonayay in uu kusoo galo saaxada ama uu runtii uu ku qaato door maaragtay sheeg ciyaareed oo dhinaca dagaalada iyo bandhiga ah sidoo kalena ay dad badan ay lahaayeen waxa ay dalal badan u bedeli doonaan diyaaradahan Mareykanka F-22 waxaana ku dhawaan karaan hadda diyaarada F-35S marka la kala fiiriyo waxaa ka dhacday aniga dhinaca markay noqoto wax soo saarkooda iyo bandhigoodaba hanta harubla aad u xooggan lamana filaynin ilaa xad inay sida noqon karaan dib u fiirsashada marka loo fiiriyo ama dib u milicsiga waxa meesha ka dhacay diyaaradihii Rafale mustaqbalkoodii warbaahinta aad akhriday iyo intaad indhaysay dabcan intaad joogtay wadamadan aad hadda ku sugan tahay maxaa leeyahay horta waa sax oo diyaaradaas Rafale sidaan wada ognahayba waxay ahayd diyaarad aad iyo aad u qiimo badan marka xagga reer Yurub la joogo oo ay reer Yurub hadda isku badayeen inay kaga tanaasulaan iibsiga iyo raadinta diyaaradda F-35 ee Mareykanku adeegsado 288 milyan waa joogtaa qadar lacageedo badan weeye wadamo badan waa haystaan oo masaaridu ka mid tahay waxa kan la ii sheeg waa qaateen dabcan diyaaraddaas dagaalkan dhibanay u tahay sida shirkadaha Shiinuhu ay faa'iido ugu yihiin ayadu diyaaraddaas shirkad soo saarta iyo wadanka Faransiiskuba dagaalkaas dhiban u yahay diyaaradii kaliya oo waxa kan la ii sheegeen jiilka 4.5 ahaa oo ay kula tartamayeen diyaaradaha Mareykanka oo waxa kale ay sheegay rabeen inay kula qaadaan dhigaan bay ahayd ayadiina waxa kale ay sheegeen fashil baa ka soo wajahay oo hadda waxa la sheegayaa suuqyadeeda 40% inuu hoos u dhacay bilcagsigeeda halka kuwii Shiinaha 40% kordhay marka diyaaraddaas ayadu waxay u tahay dhibane oo nidaamkii aan ku sheegayo hadda reer galbeedka oo ay Hindiya ka fiirsashada ku sameynaysa bay ku jiraan oo meeshan waxa kale yiraahday sheeg dhibaatada ka soo wajahday waxaan rabaa dawadasha qiimo badan inaan iska hortaagno wadanka Shiinaha iyo Hindiya iskuma sanbanaana waxaana jira inay isku haystaan dhul baaxad weyn oo gobolkan Himalaya burleydan ku yaala ay aad iyo aad isqilqil isugu labada dalla 1960 waa tii ay isku horimaado aad xoogan ay yeesheen oo aad u ballaaran taas macnaheedu waxa weeye dalka loo yaqaano Shiinuhu ma dhici karto ayaa la leeyahay inuu qalabka istaraatiijiga ah gaar ahaan diyaaradihiisa J-10 iyo J-17 midnaba uu dalka Hindiya ka gado sababta arinta uu sameeyay doonana waxa lagu tilmaamay oo sameeyay doonina waxa lagu tilmaamay inuu doonaynin in ay awoodda dalka Hindiya ay kor u qaadanto laakiin waxa jiray in markii uu bil ka hor uu joogay ra'iisul wadankaasi Hindiya Narendra Modi wadanka Mareykanka in madaxweyne Trump uu sheegay inuu iibsan doono diyaaradaha F-35 inkastoo Hindiya laga maqal warkaas isla markaana uu dhowl cadeeyay markii uu Trump warkaas yiri arintaas haddaynu bal eegno ma kula tahay inay wax ka bedeli doonto qorshaha dhinaca dagaal ee runtii iyo masraxa haddii uu diyaarada F-35 ka helo sidaan wada ognahayba horta Hindiya waxay haystaa diyaaradaha la yiraahdo F-16 ee Mareykanku leeyahay oo ayada iyo Pakistan ba kala haystaan dabcan maalmihii dagaalku bilowga ahaa oo fafaalaha dagaalku bilowday oo waliba Hindiya ay weerarka qaaday labada wadanba Mareykanku wuxuu ku wargeliyay inaysan adeegsan diyaaradihiisa F-16 amar la'aantooda dabcan marka hadda waxay ila muuqataa inaysan Hindiya imika u soo jeedin iibsashada F-35 wayada laftigeedaba hadda Yemen laga soo sheegay in lagu sigayo ay khatar gashay oo sidii Rafale u ciido gaartay laakiin Mareykanku uu ka gaaray oo
waxa kan la sheegeen kooxda xoutiyiinta ay soo ridi gaareen laakiin xilli fiican uu ka gaaray oo uu ka saaray kawada cunaan la gaarayna hubka dhigis iyo waxa kan la sheegeen xabad joojin la gaaray labadooda waa Amerika iyo xoutiyiinta marka diyaaraddaas hadda aad bay u raadinayeen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddan hadda joogta F-35 sida marka ka muuqata warbaahintooda gudaha iyo say hadda u qaada dhigayaan siyaasiyiintooda ka faallooda arrimaha dagaalka iyo waxay u muuqataa nidaamkii difaaciyada iyo nidaamka weerarku nooc doonaba ha ahaadee oo Amerikaanku lahaa inaysan waxa kan la sheegay hadda u yeelan isticmaali doonin mid kalena ka dalban doonin waa sida hadda ay hadallada u dhigayaan oo ayagu ay u qaada dhigayaan arrimaha